السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo casharadii aqoonkaal.com ee aan ku baranaynay barnaamijka Open Office qaybtiisa xisaabta ee loo yaqaan calc ama spreadsheet. casharkan waxaan ku baran doonaa xisaabeedka boqolleyda ama boqolkiiba. sidaan casharadii hore meel kamid kaga soo xusnay waxaan niri barnaamijka xisaabeedka Open Office waxa loo isticmaali karaa waxa kamid ah in sakada si sahlan aad u bixisid. maalka sida diinta islaamku in farayso waxa weeyaan in laga bixiyo sako. marka waa in la yaqaan qaabkii sakada loo xisaabinayay ama boqolkiiba meeqa lagu dhifanayo lacagtii sanadka ku soo xirotay ama haysatay sanadkaas. sakada waxa la bixiyaa waa naqaanaa sakada waxa la bixiyaa hal loo qaybshay 40 ama oo dhiganta 2.5 boqolkiiba taasoo la mid ah 2.5 loo qaybshay boqol ama lacag u dhiganta eber 2.5 marka waxa xusuusnaanaysaa in la bixinayo 2.5 boqolkiiba ama 2.5%. intayna u gudbin xisaabinta sakada waxaa muhiim ah inaad isla fahamno hal wax ama hal shay taasoo ah eber 2.5 markaan leenahay waxaa dhici karta adiga inay kombiyuutarkaaga uu yahay luqad kale sidaa daraaddeed meesha dhibicda inay tahay hakad. waxaa kaloo muhiim inaad fahamtid markaa qoraysid eber 2.5 inay dhici karto inuu kuu qoro eber 3 si taas aad u fahamtid cilladda meesha ka imaanaysa waxa weeye meeshaan sare oo dhibicda ah calaamadii hal mar riix marka waxa weeyaan wuxuu noqonaysaa macna waxaad siyaadisay inta eber oo dhinaca midigta ka xiga dhibicda ayaa kordhisay saasaa marka kugu soo baxaya marka eber 2.5 taas markaan isla fahamno arrinta kale aan muhiimadda ahay waxay tahay oo aan niri waa dhibicda waxaa laga yaabaa kombiyuutarka hadduu luqad kale ku qoran yahay sida daanishka ama faransiiska ama luqado kale hadduu barnaamijkan aad isticmaalaysa uu ku qoran yahay waa dhici karta inuu meesha dhibicda ah u yaqaano hakad marka eeg u fiirso haddii aad qortid eber 2.5 waxaa dhici karta aniga hadda wuxuu u qorayaa markaan qoro eber 2.5 wuxuu u qorayaa 5 adiga dhibicda dhici karta inuu kuu qoro markaa dhibic tirahdid sababtaas maxay tahay waxa weeyaan nidaamka ama systemka ay adeegsadaan kombiyuutarada luqadaha kala duwan ayaa kala ah marka waxaa dhici karta inaad European systemkooda u adeegsado hakad laakiin American system ama Somali system uu adeegsado dhibic. si taa u aragtid waxaad eegaysaa waxaad leedahay tools kadibna options eeg meeshay ku qoran tahay languages kadibna languages waxaad eegaysaa meeshay ku qoran tahay decimal adiga waxa dhici karta in luqad kale kugu qoran yahay barta horteeda oo calaamadsan aniga waxa igu qoran dhibicdaas waxay sheegaysaa marka in decimal ama inta eberka dhibic marka la yiraahdo wixii ka dambeeya in adeegsanayaan dhibic ama hakad aan eegno marka hakadka marka luqadaha ah tusaale ahaan waxaan leeyahay Danish wuxuu adeegsaday hakad marka luqadda uu kugu qoran yahay barnaamijka hadduu yahay Danish hadduu yahay wuxuu adeegsanayaa hakad hadduu yahay Dutch wuxuu adeegsanayaa hakad hadduu yahay Australian English wuxuu adeegsanayaa dhibic hadduu yahay English ka dhowr nooca Australian Canadian so Canada waa dhibic US waa dhibic laakiin Faransiis marka la yiraahdo French Canada so tusaalahaan hadda Canada kaga nooshahay Quebec oo gobolka Faransiiska looga hadlo waxaad adeegsanaysaa macnaha oo kombiyuutarka barnaamijku kugu qoran yahay Faransiis waxaad adeegsanaysaa hakad laakiin hadduu Ingiriis yahay oo aad joogto Canada dhinaca laga hadlo Ingiriiska laga hadlo wuxuu noqonayaa dhibic buu noqonayaa oo anaga soo aragnay English Canada oo dhibicda marka muhiim weeye in halkaas aad fahamsan tahay sida aad ku garatina waxa weeye waxaad qoraysaa eber 2.5 hadduu kuu qormo eber 2.5 kuu qormo waa saxba waa kombiyuutarka waxaad adeegsanaya dhibicda laakiin haddaa qorto eber 2.5 oo kuu qoro 5 waxa weeyaan weli waxaad adeegsanaysaa dhibicda laakiin haddaad adeegsan lahayd ka soo qaadina hadda bedelo meeshan waxaan bedelayaa nidaamkii baan bedelaynaa waxaan leenahay
English no Danish هذا Danish marka wuxuu noo joogaa soo marka waxaan nidhi eber hakad eber laba shan wuxuu qorayaa marka dhibicdiiba hadda uu fahmaya Danishku oo Danish marka hadda Danish ahaan buu garanayaa marka inaad xusuusno waxaan nidhi hakadka hadduu 3 ku qoro meeshana ka fidinaysaa macnaha numberka ka sokay eberka soo ma jeedid marka inaad kala fahamtid weeye marka dhibicda miyuu ku shaqeynayaa mise wuxuu ku shaqeynayaa hakadka labada markaan kala fahamno أنا أقول لك دبي أقول لك كمبيوتر كذا أوكي تاس مركو حوالي مهم أي تاينا فهمتid مو واحد يكسني إبر دبي شنلاتن مس إبر هكذا إبر شنلاتن وعن كسر قادنا مرك إنا هاي سنة $1 وعن سكرنا كم بحنو كون كيف حكوا قرأت خانة الله حكوا قرأنا سا أنت سكر اللي بحنايا وأنا بحنا نري وحويا وإبر دبي إبر لو شن meesha aad xisaabta rabtay kaga soo baxdo waad dhiganaysaa hagaha kadibna waxa leedahay calaamadii equalka si loo xisaabinayo waan naqaanaa isku dhufashada equal kunkii dollar godkiisii calaamadii kadibna calaamadii ku dhufashada ku dhufo ama riix marka percentage lacagtii ahayd calaamadii ama mouse ku calaamadii enter dheh marka kunkii dollar ama kunkii shilin ama kun lacag ah oo kron ama kun liire waxirta haatee kunkii marka waxa ka soo galaya 25 lacagta marka kunkii waxa noqdo 25 hadii lacagtu ilaahay ku badiyo noqoto 5000 automatic loo marka noo xisaabiyo noqonaya 1200 ba marka soo galaya 15000 waxa ka soo galaya 325 waxaad halkaa ka garanaysaa inay aad u sahlan tahay in la xisaabiyo sakada marka la adeegsanayo barnaamij xisaabeedka Open Office waxa u baahan tahay lacagta sakada laga bixinayo inta rabto noqoto iyo boqolkiiba inta la bixinayo ah eber dhibic eber 2.5 ama 2.5 boqolkiiba meesha kaga soo baxaysa lacagta dhiganaysaa mouse-ka kadibna waxa leedahay calaamadii equal-ka booska lacagta calaamad ku dhufanaysaa mouse-ka kadibna calaamadaysa ama riixaysa calaamadii ku dhufashada ee tabka waxaad hagaha ku riixaysaa barta boqolkiiba inta lacag lagu dhufanayo enter baa leedahay waxa ku soo baxaya lacagtii sakada geliysay intii sakada bixinaysay mar haddii aan isla fahmnay qaabka boqolleyda loo xisaabinayo ama sakada loogu dhufanayo xisaabta waxaan eegaynaa hab guud oo aan u xisaabin karno kharashkii ka soo baxay dukaanka sanadka sida saka loo bixinayo meeqa faa'iido heshay iyo boqolkiiba meeqa sanadka la faa'iiday ayaan eegaynaa waxaan ka soo qaadnay marka inaan dukaan ku iibino bariis bastos bur saliid iyo sonkor mid walba marka waxaan haysanaa cadadka la soo aan iibinay sanadkaas iyo mid walba qiimahan ka soo bixinay marka waxaan eegaynaa meeqaan ku soo iibinay marka lacagta meeqaan ka soo bixinay halkan waxaan noo yeelanaa lacagta raasumaalka sanadka oo dhan aan haysano oo ah 50,000 macnaa markii hore oo sanadku bilaabmay oo lacagtan raasmaal haysanaa raasmaalkii marka waxaan ka soo iibinay alaabtan ka soo iibinay marka mid walba waxaan xisaabinaynaa meeqaan ka soo bixinay qiimihii lagu soo iibiyo waxaa leedahay marka calaamadda equalka kadibna 12kii wax marka hore xisaabinaa bariiska 12 waxaa ku dhufanaysaa 30 baa ka soo bixisay enter bariiska marka waxaa ku soo iibisay 360 hore ayaan usoo baranay si loo koobiyaaray ama koobi looga sameeyo xisaabta qaacidadeeda koobi ka samee mid walba marka waxaa ka soo bixisay lacagtaas qiimo intaasaa mid walba ka soo bixisay marka waxaan xisaabinay lacagtan ku soo iibinay dhammaan aan alaabtan dukaanka u soo gadnay waxay noqotay barta ay ka soo bixayso isku darka guud keen equal ama calaamadii isku darka calaamadii kadibna waxaad tirahdaa enter lacagta intaa lag baan ku soo iibinay lacagtan waa marka waa lacagtii aan alaabta dukaanka aan u soo iibinay aan ka soo bixinay isku darkoodii oo dhan raasmaalkeena wuxuu ahaa 50,000 marka raasmaalka waxaa ka goysaa lacagtan waxaa leedahay equal lacagta raasmaalka ahayd calaamadii ka jarka kadibna intaa soo iibsi waxaa ku soo haray lacag intaana ku soo hartay
haddaa rabto mar walba lacagta mid walba aad soo iibisa inta ka jarmaysa haddaa rabto inaad ogaatid waxaad leedahay equal lacagtii guud calaamadii ka jarka kadibna calaamadii bariiska enter dheh koobi ka qaad markaa formulada mid walba markaad soo iibisay 360 soo iibisay waxa kontonku ka soo haraya 49640 saas u soconaysa marka laakiin guud ahaan waxa ku soo haray 32440 baa ka soo haray lacagtii aad ka soo bixisay alaabta marka hadda waxaa haysataa lacagtii aad soo asal ahaan haysatay iyo inta alaab aad soo gadatay waxa ka soo bixisay waxa markaan eegnaa marka alaabtu waan sii iibinayna la dukaanka alaabta marka u soo gadid waan sii iibsaa mid walba marka waxaan ku iibinay bariiska waxaan ku iibinay 420 baan ku sii iibinay baasada waxaan ku sii iibinay 1000 waxaan ku sii iibinay burka 700 waxaan ku iibinay saliidda 1960 waxaan ku iibinay 9600 waxaan ku iibinay sokorta marka alaabtan soo wada iibinay oo dhan waxa qiimaheedu noo noqday equal intaas noo soo baxay tan waa intaan ku soo iibinay way marka maxaan faa'iidnay shay walba intaan faa'iiday marka eeg bariiska maxaan faa'iidnay lacagtan ku iibinay ama ku sii gadnay oo 420 baad calaamadinaysaa kadibna waxaa leedahay ka jar waxaa marka calaamadinaysaa lacagtan ku soo iibinay oo 360 ka ahayd enter $60 baan faa'iidnay koobi ka samee markaas qaacidadii si aad u ogaatid mid walba waxa ka soo bixinay iyo waxaan faa'iidnay marka shay walba waxaan faa'iidnay waa kana waa faa'iida laanka faa'iidada ku jira isku dar faa'iidada dhan marka korba isku daraysaa dhan ama enter hadda waxaan haysanaa marka waxaan faa'iidnay raasmaalka waxa noo ka soo haray lacagtan ka soo bixinay iyo lacagtan ku sii iibinay haddaba marka saan u xisaabino sakada aan bixinayno isla markaantan aan ogaano waxaan faa'iidnay boqolkiiba waxaan xisaabinaynaa raasmaalka marka hore soo qaado raasmaalka wuxuu ahaa 50,000 buu raasmaalku ahaa faa'iida iyo raasmaalka la isku daray maxay noqonayaan equal raasmaalkii calaamadii kadibna ku dar faa'iidadii intaas markaa haysataa waxaa haysataa 54,160 ayaa noqotay faa'iidadii iyo raasmaalkii la isku daray lacagtan 54,160 ayaa marka bixinayna sakadii maxaan nidhi waa lacagtii faa'iida lagu daray raasmaalkii oo lagu dhiftay 2.5 boqolkiiba taas saka ah taas maxay noo ku dhigantaa waxay u dhigantaa waxaan soo aragnay eber 2.5 marka waxaa leedahay calaamadii equalka qor kadibna lacagtii aad sakada ka bixinaysay calaamadii oo lagu dhiftay boqolkiiba sakada inta la bixinayo waxaan bixinaa intaas marka lacagtii sanadkaas waxaan faa'iidnay iyo raasmaal haysanay isku darkeedii intii sakada gashay waxaa ka soo baxay 1354 baa saka ah maxaa markuu soo haraya markaa sakadii iska goysid sakadii marka lacagta ka goysid waxaa ku soo haraya equal lacagtii faa'iida iyo raasmaalka ahayd oo ahayd 54,000 baad waxaa ka jaraysaa sakadii waxaa ku soo haraya marka maxsuulka 52,000 waa natiijada aaday ah ma lacagta ku soo baxaysa mana natiijo ahaan ama maxsuul ahaan waa intaas waxaa laga yaabaa marka inaad isweydiisid meeqaan boqolkiiba sanadkan faa'iidi waxaan ku bilaabay 50,000 waxaan helay marka hadda haystaa 52,000 markaan sakadii ka bixiyey meeqaan marka lacagtaydii sakadii ka bixinteedii kadib aan faa'iido ayaa laga yaabaa inaad isweydiisid si loo xisaabiyo waxay tahay lacagtii kuu soo hartay ee baaqiga ahayd ama maxsuulka ugu dambeeya haysatid baad waxaa ka jaraysaa raasmaalkii marka waa maxsuulkii oo laga jaray raasmaalkii baad waxaad u qaybinaysaa marka raasmaalkii
waxa marka wixii ku soo baxo ku dhifanaysaa 100 marka waa maxsuul laga jaray raasmaal oo loo qaybiyay raasmaal oo waxa ku soo baxay oo dhan lagu dhifto 100 si uu soo baxdo 100kiiba sida loo xisaabiyo ugu sahlan marka waxa weeye inaad raado calaamadii equal-ka kadibna bil fur bil kala fur laba bil waxaan arkaynaa mid walba markay xiranto waxa calaamadaysaa lacagtii maxsuulka ahayd kadibna calaamadii negative-ka ama minus-ka waxa marka calaamadaysaa raasmaalkii bishii koowaad xir calaamadii u qaybinta mar labaad calaamadii raasmaalkii bishii labaad xir calaamadii ku dhifashada kadibna waxaad tiraahdaa 100 enter waxa faa'iido 100kiiba 5.6 baa sanadkaa faa'iiday percentage waxaa habkaas la mid ah inaan qorno maxsuulkii oo laga jaray raasmaalka oo loo qaybshay raasmaalkii oo wixii soo baxay lagu dhiftay calaamadii 100leyda ama 100kiiba calaamadii 100leyda aan eegna haddaba waxaan nidhi equal waxaan furaynaa bil laba bil baan furaynaa kadibna maxsuulkii oo laga jaray calaamadda laga jaridda raasmaalkii bishii baan xirnay calaamadda qaybinta mar labaad baan calaamadinay raasmaalka bishii kalaan xirnay enter baan nidhi waxaa ku soo baxay eber 5.6 intaas marka waxa ku dhifanaysaa calaamadii 100leydii waxa soo baxay 5.6 boqolkiiba faa'iidada barnaamijkan waxa kamid ah in marka aan bedelo inta aan soo iibinay alaabta ama intaan ku iibinay ama lacagtii guud ee raasmaalkan haysanay in automatically isbedelayaan dhammaan xisaabtii xagga hoose ahayd isku darkii ama boqolkiiba ama sakadii la bixinayay ka soo qaad inaan iibinay meesha 12 ka soo iibinay 12 kiiso bariis aan iibinay 30 kiis waxa isbedelaya lacagtan ku soo iibsanay waxa laga yaabaa marka inaan waxaan bedelinaa oo kale intaan ku sii iibinay waxaan ku sii iibinay 1000 waxa isbedelaya marka lacagteena dhan way isbedelaysaa waxa isbedelay intaan faa'iidnay iyo intaan iska bixinayno halkaas waxaan ku soo baranay qaabka loo xisaabiyo xisaabta 100leyda taasoo faa'iido badan leh isla mar ahaantaana waxaan soo aragnay qaabka loo xisaabiyo sakada halka ayaan ku jirnaa casharka maantay intaan casharka kala dib ugu kulmi doono wabillahi tawfiiq waa barnaamijka kala socoteen aqoonkaal.com